adaan soo dhigayaa aabbaha aan soo dhigayaa adigaan ku soo dhigayaa istaaggaana kaa ridaya sheekadaas way dintay sababta hadda aa u soo kicisay ee hadda aa u soo curisay maxay tahay waxaad igu xirtay qalad bay ahayd beydkaagu ilaa hadda yaallaa sawirkeedu sabab aad u geli kartaa beydkaaga brefatka ah oo aan gobolka banaadir lahayn oo aan booliis lahayn ee shakhsigaaga personalka aad u leedahay inaad sawirkeyga soo dhigtid oo qori weliba inta laygu qabto laygu dhufto la saaro sawirkeyga waa khalad waana ka doodayaa weliba sharcigaan aadayaa loo yaraan qabsanayaa waana mahadsantihiin ii sheergalaya video gariiqaano haddii uu qabiil wax taraayo adiga ayuu wax kuu tari lahaa maalinkii xabsiga lagu taxaabana xabsiga ayuu kaa soo dayn lahaa waxaa lagu tusiyey laakiin inuusan qabiil magaaladan ka shaqaynayn qofka suncadiisii haybadiisa oo keliya inuu magaaladan ku joogi karo oo keliya dayaxdal noorshiyo ninkay dhahaan siikay waa bulshada hindhahooda kama sheekeeyaan qabiil kama sheekeeyaan ummad inay isku diraan kama sheekeeyaan dadka qaar in ay buusaan waa dad noloshooda iyo adduunkooda iska wato magaalo joogan waa ay fahansan yihiin markay isdagaaleen horey ay ka heshiiyeen xabsigana waa ay ka badbaadeen waxa adi hiidka ku gaarsiiye oo intaa aan la xanaaqsan tahay oo fuusta la riixayso oo aan la qaraarsan tahay waxay tahay dadkan maxaa loo soo xiri waaye war dadkan haddii ay heshiiyeen oo idinka labadii qof oo adiga iyo boos dagaasheen idinkoo laba qabiil kala matalaya micnaha laba qabiil kala matalaysan sida aan la socdo micnaha haddii kan uu tanaasulo oo kan kale u tago waxaa loo riixaa qofkan isaga ah ii imaaday oo hadhowtu waxaa leeyahay qabiilkan ayaa qabiilkan kale ka cabsaday taas idinkoo ka cabsanaya ayaa xabsiga la idin geeyey arrintiina xabsiga ayaa lagu soo dhameeyey hadda waxaa ku dhegan tahay waa macallimahdiga ruuxiisa caloosha kuusana haystaaba kan yare mustaf la leeyahay degmada hodan taliyaa ka ahayst shaqaalaadsin gebi ahaan dowladnimadiinnu waa in laydin diro qof habargedira shalay markii muqdisho aad joogtay waxaa waxayga nairobi la aadaa kor uma sheegi karo markaa lahayd ayaad wax ka qaadi lahayd macallimahdi waa uuna sheegay waxa uuna yidhi sidan haddaa rabto inaan laguu sawirin taleefon kaamiradiisa liito oo wejigaagii tigtogga yaallay iyo snabjatka yaallo kale inaad ahaataa rabto asturow oo hadalkaaga iyo afkaaga dadkan ha kaa magaan galaan waxa aad soo gudbinaysana wax wanaagsan ha noqdaan haddii aa afkaa dadka ka qabsan weyso oo qabyaalaystaad noqoto oo ummadda kala geyso oo mid walba aa ka dhaansato oo waxaawaay furimaha dagaalka ay bataan waa lagu sawiraa ma ahna tooshlaa lagu sawiraa madaxa lagu bixinaa qof inta la ihaanaysan karo aa lagu ihaanaysanaa macallimahdi sababta aa ugu dhigantana waxaa ka mid ah inaa istaqaaniin oo yaraantiin batriga aad soo dheeli jirteen laakiin haddii booska hadda macallimahdi uu joogo qof kale uu joogi lahaa waa ixtiraami lahayd madaxna waa saarayn lahayd laakiin horaa waxaa loo yidhi naag nimay taqaano nin uma ahan marka waa sheekadii hadda sheekadaasaa wadaa ninkan waxaa ugu dhigantahay wax